Bismillah. Assalaamu calaykum walaalaha Soomaaliyeed meel kastoo dunida ka joogtaan waa idin salaamayaa. Waxaan qof walbana ku salaamayaa maqaamkiisa iyo jegadiisa iyo maamuuskiisaan qof walba ku salaamayaa. Waa walaalkeen Ismaaciil oo idin soo salaamayo. Kusoo dhawaada Ogaal Media. Walaalayaal saaxiibayaal maantay amaba caawa kulli annaga caawa inoo tahay Uganda amaba Afrikadan dhow. Waxaan idinla wadaagi doonaa hadduu eebbaha awoodda leh inoo saamaxo 5 qodob oo u baahan inaan ka faa'iidaysano intaysan noo imaanin 5 kale. Haddaba bishaan waa bil Ramadaan ah, waa bishii Quraanka uu soo degay, waa bil qayraysan, waa bil expectation fara badan qof walbo laga sugayo inuu wax badan sameeyo. Therefore 5 qodob anoo waqtiga soo koobayo walaalayaal. First of all, intuusan dhalinyaranimada tusaale kale markaan yarayn hadda odayaal baa noqonay qaarkeen waalidku waxayna dhihi jireen war dhalinyaranimada ka faa'iideysta, war dhalinyaranimada laga faa'iideysto. sababtoo ah waalidka qofka markuu weyn yahay uu yahay qof wax dhalay maybe age ah wuxuu garanayaa macnaha dhalinyaranimada, wuxuu rabaa inuu dhalinyaranimo ku laabto uu ka soo faa'iideysto waqtigii, laakiin ma soo laabanayso. shalay ma soo laabanay maya, xala ma soo laabanay waa maya, waa it is done. marka la leeyahay dhalinyaranimada ka faa'iideysta dhalinyaranimada ka faa'iideysto inta badan ereyadaas waxay ka soo baxaan waa dad experience leh, waa dad naga waaweyn oo garanaya dhalinyaranimada value-ga leedahay. marka muhiimadda meeshaas ku jirta waxay tahay aan ka faa'iideysano dhalinyarannimadeena intuusan age-ka amaba waqtigeena intuusan weynaanin. aan ka faa'iideysano dhalinyaranimada intuusan cimri nagu imaanin ama duqnimo, waayo duqnimo markaad gaartid awood ma lahaanaysid, cibaadadii baa kaa naaqusayso, awood energy badan ma lihid, ilaahay kuuma darnaadee waxyaabo fara badan baadan samayn karaynin oo markaad yaraydo wiilka yaree laafyaha badna aadan samayn karin. Secondly, ama qodobka labaad, walaal intaad caafimaadka qabtid caafimaadkaada ka faa'iideyso si hadhow markaad xanuunsatid aad uga faa'iide macnaha aad ku tarto caafimaadka wax ka samaysay. sababtoo ah tusaale oo kale qofka markuu caafimaad qabo masaajidka aado uu ku xiran yahay, masaajidka uu si constant ugu xiran yahay, markuu xanuunsanaado xaaladda ku adkaato uu guriga ku tukanayo, ilaahay wuxuu u qoriyaa 27 ajir ee uu ka heli jiray masaajidka. ilaahay waa caadil, lamid maahan midka guriga joogi jiray oo ilaahay wadana guriga isaga tukan jiray markuu xanuunsado. marka waxay ku tusaysaa qofka markuu caafimaad qabo wuxuu samayn jiray oo wanaagsanaa, markuu xanuunsanaado ilaahay subxaanahu watacaala ayaa compensate garaynaya amaba ilaahay subxaanahu watacaala baa meeshii kale ka waxaynaya maadaama addoonkii hadda uu xaaladiis ku adag yahay. qodobka saddexaad, walaal inta aad waxhaysatid ee gacanta dhaqaale kugu jirto waxay aataba ha yaraadeen ama ha badnaadeene dadka khalqiga uga faa'iidee, adigana ka faa'iideyso dakhliga amaba wixii adig markaad haysatid. qof walba dee waxuu ilaahay siiyay hal koob haddaad haysatid dadkaad la sheer garayn kartaa, ilaahay wuu kuu badanayaa adiga. 2 malaa'ig baa subaxii waxaa la yidhi laba oo garbaha taagan baa qofkii subaxii midna wuxuu leeyahay ilaahu kan bixiyo wax sii, midna wuxuu leeyahay ilaahu kan haysto halaag oo ka qaad wixiisi. marka wax walbood haysatid bixi, wax kastoo adiga ay haysatid sadaqada bixi, ilaahay kuuma darnaade. intaad haysatid awood badan haddaad leedahay masaajid dhis, dadka masaakiinta u gargaar, dadka caawi, noqo qof dunida macnaha beneficial u ah. ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu jecel yahay kuwa faa'iidada u ah kuwa kale ee caawi addoommadiis kale xaaladda ku adag. ha dareemin kibir inta yaree lagu siiyey. 2 qof baa jirto adduunka, qofna markii wax la siiyo uu sii kibraa oo lugihiisu ka siiyo madaxiisu kor ka sii qaadaa, qofna markii wax la siiyo kibir ma ahane xataa dadka hoose masaakiinta ah buu la fariistaayo, qaarkood xataa uu shaaxa la cabaa u nugul yahay. marka qofkaas dambe 2 qof ee dambe aan sheegay waa qofka true success-ka ah.
waa qof ogaaday xigmadda waxa uu haysto in ilaahay subxaana wa tacaala ay ka timid dadkan uu u wanaagsan yahay ilaahay uu leeyahay berina ilaahay ka qaadan karo waa qofka xigmadda fahma waay qodobka afraad walaal waqtigaada firiiga ah isticmaal oo uga faa'iidayso waxyaabaha kale gaabka waqtiga firiiga maxay tahay shaqo markaadan lahayn waxbarasho markaadan lahayn ilaahay kuma darnaadee markii adiga free timeka ay tahay wax wanaagsan ku samee oo productive ah quraan ku akhriso ilaahay kuma darnaadee familka qoyska aad dadka aad la joogtid u sheekee oo waalidiintaada qaraabada ka warqab waqtiga useful ka dhig oo bini'aadanka ugu adeeg qodobka shanaad last but not the least waa walaal intaad nooshahay ee neeftaan ay kugu jirto arwaaxda oo hadlaysid ka faa'iidayso intaadan qabriga lagu gelinin sababtoo ah qabriga markii lagu geliyo waa ku dhammaatay xisaabtaada waa la xiray ilaa expectation 3 mooshi uu nabiga noo sheegay calayhi salaatu wasalaam in aad ka tagtay ubad saalix ah oo kuu soo duceeyo oo markaad dhimato dhaho ilaahow aabahay u dembi dhaaf ama hooyaday u dembi dhaaf iyo inaad ka tagtay sadaqa tujaariya oo dadka anfac u ah iyo midkii saddexaad muxuu ahaa sadaqa tujaariya iyo walad xalaal iyo cilmi naafica markaa dadka uga tagtay hadda culummadeennii oo kale culummada hadda aan ka warqabno culummo badan oo dhimataa jirto laakiin in actually maysan dhiman cilmigoodii nala joogo marka mar walba aad dhegaysatid qof dhintay asxaabtii amaba kii kalo ajir buu ilaahay sii siinayaa marka walaal shantaas qodob haddaan kusoo celiyay si samiri ah waqtigaaday dhalinyaranimada ka faa'iidayso intaana waayeelnimada aysan ku haleelin ka faa'iidayso caafimaadkaada intuusan xanuun ku helin ka faa'iidayso dhaqaalahaada intuusan faqri ku helin ka faa'iidayso free timeka ama waqtiga aad haysatid intuusan waqtiga mashquul uusan ku imaanin ka faa'iidayso nolosha maanta ilaahay uu ku siiyey subxaanahu wa tacaala intuusan ay dhimasho ku imaan waayo ogow dad badan baa ramadaanka hore aan isla soonnay maanta aniga aan garanaya aniga kula hadlay ismaaciila there are very many people laakiin today they are no more marka ilaahi subxaana wa tacaala adi maanta naftii ku siiyey waad nooshahay macnaheeda ma ahan in adi ilaahay dadkaas uu kaa jecel yahay ee waa adi imtixaan lagu imtixaamaayo waqti walba 1 second walba oo adiga aad ilaahay ku siiyo waa inaad ilaahay ugu mahad celiso aad baan idinkugu mahad celinaya walaalihii subscribe-kana ha naga hilmaamina khayr allah idin siiyo ramadaankana ka faa'iidaysano asalaamu calaykum